mar walba hadiyada la isku hadiyay waxa ugu habboon buugaag waa hadiyada aad codsan karto marka lagu keeno haddana aad ku farxi karto waa hadiyada aan kadiskaagu kaa bi'in xataa haddii aad adigu codsato oo aad dirsato oo aad doorato labadan kitaab oo midkood laba mujallad yahay muddo sanad ah ayaan daba socday maanta waxay iga yimaadeen dalka Saudi Arabia saaxiib qaali ayaa ii keenay anigoo aan isaga inuu ii soo qaado anigu ka codsaday hadda markaan bacda ka furaayo baal furaayo sidii waxa aanan ogeyn oo lagu kadiyay oo cusub oo la dooxay aan dooxay ahayn ayaan ugu faraxsanahay aniga saddexdan buug qiso ayaan u dhaxayso maalinkii soo baxeen qoraaga buugta iska leh Dr. Malak Al-Juhayni ama Malak Ibrahim Al-Juhayni ay soo bandhigtay in saddexda mujallad oo laba mujallad yahay midna hal mujallad yahay ay soo saartay ilaa maanta oo muddo ugu yaraan 2 sano ku dhow ama sanadii bar ku dhow ayaan daba socday saxaab badan oo kala duwan baan dirsaday bandhigyo buug badan oo kala duwan ka qayb gashay aniga oo musaafir ayaa ka doontay dalka lagu iibinayo laakiin waa isu tigilidana soo gato ugu dambeyntii maanta ay soo gaadheen kale ayaan wada daafurnay waa ka ugu horeeyay waa buug ciwaankiisu yahay aynun turaqib al-usfur fi adabiyat al-faqd wal-hidad wal-hamd oo ah buug sugaana oo ka hadlaya waayida iyo kala guurka iyo tabitaanka iyo mahadnaqa sugaanta laga curiyay laga qoray ama laga sameeyay kitaabka labaadna waxa la khuyulun wa akhira wala mujallad oo kitaab falsafiya ciwaan hawsaadkiisu waxa weeyaan dalaalaat nadariyat ma ba'da al-isticmaar wa martakazatiha qaybta labaad ciwaan hawsaadkiisu waxa weeyaan tajaliyat nadariyat ma ba'da al-isticmaar wa athariha oo ah majaalka ama mawduuca ay ku takhasustay qoraaga buugu aragtida isticmaar siibka iyo isticmaalka kadib ama aragtida ma ba'da al-isticmaar post colonialismka loo yaqaano waa buugaag gaar ahaan buugga labada mujalladka ee khuyulun wa akhira aan kula talinayo qof kasta oo Soomaali ah inuu akhriyo